dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay caawa xafladan yar iyo waayeel rag iyo dumar waad salaamantihiin. caawa halkaa kugu soo istaagay hadal badan aan oran mayo. General Asad ayaan taariikhdiisa wax yar ka sheekeynaya. Asad waxa uu ku dhashay 1978 waxbarashadiisa hoose dhexe markuu dhameeyay waxa uu galay jaamacad la yiraahdo Thmania University oo uu ku qaatay international IT kadibna waxa uu tagay India magaalada Hyderabad wuxuu ku soo dhamaystay masterkiisii international relationship dabeedna waxa uu ku soo laabtay wadankii 2011 waxa loo qaaday ama aaday dalka America waxaana uu ku soo bartay tababarka ciidanka gaar ahaan hogaaminta. Asad kuma soo boodin siyaasadda waxa uu ka soo jeedaa qoys soo jireen ah oo saaxadda siyaasadda Soomaaliyeed wax badan ku soo jiray. Asad awowgiis Cabdullaahi Maxamuud Cadde iyo Ismaan Maxamuud Cadde iyo Maxamed Maxamuud Cadde oo awoowayaashiisa waxay ahaayeen Talyaanigu marka uu xornimada u ballan qaaday inuu siiyo waddanka Soomaaliya koonfurtiisa 1960kii waxa uu go'aan ku gaaray inuu 10 sano hore 1950kii uu dadka qaato dadkii markaas waxbarashada ugu fiicnaa oo waddanka joogay waxa la geeyay Talyaaniga waxaana la soo baray maareynta iyo maamulka si ay uga wareegaan dadkii Talyaaniga ahaa oo gudoomiyaasha degmada ama komisariyaasha la oran jiray uga wareegaan xukunka. markii uu soo gaaray dawladda rayidka ahaydna waxa ay noqdeen awoowayaashiis maamulkii ay ka soo muuqdeen qaarkood waxay noqdeen wasiiro qaarkoodna waxay noqdeen dhijiyaal. sidaa darteed ma ku cusba waxa kaloo idin sheegayaa Asad maanta musharaxnimada maalinta ku dhawaaqay bishii December 1 ilaa hadda shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Puntland dareenka ay u muujiyeen waa kan keenay caawa inaan ka turjino halkan waa kan aynu u fadhino meesha inaynu u dirro taageeradu maaha Asad waxaynu taageeraynaa shacabkii aynu ku aragnay baraha bulshada iyo TV-yada aan ka daawanaynay ee bururayay ee suugaanta maanta sabeynaysa suuqyada iyo baraha bulshada oo ay ka mid yihiin heesuhu gabayadu waxay kor u dhaafeen boqolaal lagaga sheekeynayo sidaad ogteenna qofka bini'aadanka markuu hal abuur leeyahay hal abuurku wuxuu ku yimaadaa mid hidda ah oo uu ka dhaxlo awowihii ama adeerkii ama qof waxba waxay kaloo ku timaadaa hal abuurku mid ka keena emotional ah oo ah mid aad markaas aad ku muujinayso dareenkaaga. taas ayaa keentay maanta in dadka Soomaaliyeed ay aad u soo dhaweeyaan musharaxnimadiisa. waxaan kaloo idin sheegayaa xalay waxa ka dhacay Minneapolis waxa ka dhacay xaflad aad u weyn oo ay dhigeen dadka degan magaaladaas iyagoo ku muujinaya dareenka ay u qabaan musharaxnimada General Asad. caawana waxaan joognaa London sidaa darteed waxaan halkan caawa ka soo ay go'aan ku gaareen fanaaniintii Minnesota oo uu hogaaminayo abwaanka da'da yar ee shanta hees sameeyay oo ku nool Minneapolis iyo Hodan Cabdiraxmaan iyo Dalmar waxa ay aad u codsadeen inay kaga soo qayb galaan Facebook oo live ah. waxay la jooga Cabdinaasir Soola oo isku xiray isaguna inoo howl yareeyay in fanaaniintu iyo xafladda daawanaya ay kaga soo qayb galaan online. Hello ma maqlaysaa? si fiican ma ku maqlaa Ahmed Khalid si fiican ma ku maqlaa oo shaka waran xalay xafladii ka dhacday Minnesota
ما شاء الله سيقول بدن بنقول عليه سيقول بدن بنقول عليه هذه فنان دين عبد الرحمن واتنا ورجوكتا يدا مركا بسلام سيدنا السلام والله انك تقدر ان شاء الله وما ستا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أديكم السلام يا إرمان شعبنا يسوس وضحي عاود تاجريدا ولكن أسد بسلام يا أنك حفظ سقوط بدن والشرف يأسل أي نوع عظيم وحنتشين يا عاود لندن سلوكله إن تقول بدن فيهين ما دام اللي كم كان حي ولا من دلتشوي وحش على سنة أنا عاود الله اللي كلا قيب خالنا أنا هو داوننا أنا هالكلام الكلام علينا وحنا ربنا ندين قلبه وندين كلا قيب قاتو هستي شعبكو هذا هو شعبكو waxay doorteen asad annagu waanu dooranay buntland oo dhan baa dooratay biidni illah guulaysan leenahay walaalkay waanu ku garab taaganahay oorshe heestaan loo sii daayo walaalkay ليس أبو waxay dalbadaan
Smart legend. Wow.
jeclaado hablahaadu sidata haybadiyo asluubtee la hamiyey dartaadu habeen socodku umaasho waxaan eegadaaba hawadaas reertee halakayo quruxdan waxaan kugu jeclaado hablahaadu sidata haybadiyo asluubtee la hamiyey dartaadu habeen socodku umaasho waxaan eegadaaba hawadaas reertee waxaan ilay noqonaa balsiyo dibnaanko adooga horjoogsada waxaan ilay noqonaa balsiyo dibnaanko adooga horjoogsada haddaad diido hadalkayga ama wacan nasiibkay halkayga ku sugaya haddaad diido hadalkayga ama wacan nasiibkay halkayga ku sugaya أسد عدكينا ورا مركن وجلان هيل بيربتا وحي تبي سهليه مراقبة بابيو وقامي واسدي عدكينا ورا مركن أسد عدكينا ورا مركن هوكانكي ويا باري هل يوي همودك هل دوركي ويا عين هدفتي موقر هوريكي سنة ونغا هل قلنا صول بوكلي هوكامي وأسد عدكينا ورا مركن وحو هوليgiisu yahay heshiisiyo waa midnimo hayaaniyo waa tisqaa diraalkuna waa axsaab haruuxiyo waa halcood hogaamiye waa asade codkiina ura markan halaagu markuu
waraadada ubadku jaqo carraadu ma qabo muusuqa hantina kama rabo geyiga hogaamiye waa asade 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 codkiina uhura markan asade 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 codkiina uhura markan hogaankii weeye bari halyey weeye mudug haldoorkii weeye cayn hadaaftimu waa u boqor hoygiisuna waa luga halkana sool buu geli hogaamiye waa asade 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 codkiina uhura markan wuxuu habeegiisu yahay heshiisiyo waa midnimo hayaaniyo waa tisqaa hiraalkuna waa axsaab haruuxiyo waana halcood hogaamiye waa asade 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 codkiina uhura markan hogaankii weeye bari halyey weeye mudug haldoorkii weeye cayn hadaaftimu waa u boqor hoygiisuna waa luga halkana sool buu geli hogaamiye waa asade 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 codkiina uhura markan wuxuu habeegiisu yahay heshiisiyo waa midnimo hayaaniyo waa tisqaa hiraalkuna waa axsaab haruuxiyo waana halcood hogaamiye waa asade 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 codkiina uhura markan hogaamiye waa asade asade I'm
qaybgalayaasha xafladeennan ka dhacaysa London ee aad ku taageeraysaan musharaxa difaaca dowladnimo. Waxaan aad uga mahadcelinayaa inaad dareenkiina nala wadaagteen idinkoo dhul iyo qaarad naga fog jooga. waxaad la nooshihiin dadkiinnii iyo dalkiinnii. waxaana walaaleeyey dareenkaas. waxaan rajeynayaa haddii aan leedmo in 8 January inaan guusha ku wada xafladaysanno. ka hor inta aan la gaarin aan dadaalno waan ducaysanno. Puntland Allah guuleeyo, Soomaaliyana ha noqdo. waad mahadsantihiin. aad iyo aad ugu mahadsan yahay madaxweyne, waa mahadsan tahay. insha allah waxaan rajeynaynaa 8 January inaanu ku xafladayno guusha aad noo keento madaxweyne. guulayso madaxweyne. sacabka